wanaagsan markale dhegeystayaal muran ayaa maalmahan ka taagnaa buurta siimoodi oo ku taala gobolka awdal ee somalilan murankaasoo u dhexeeya dadka deegaanka iyo shirkad laga leeyahay dalka shiinaha oo ku muransanaa baadhis macdaneed ay shirkadaasi ka waday deegaankaasi. dadka deegaanka ayaa ka cabanaya shirkadani ay diiday inay shaqaalayso dadka deegaanka, sidoo kalena waxa ay saluug ka muujiyeen nooca heshiiska oo ay sheegeen inuu ahaa mid aana dadka dani ugu jirin. haddaba muranka ayaa dhaliyey in la xidho 23 ka mid a madax dhaqameedka iyo xubno kale oo u dhashay deegaankaasi shirkadda macdanta laga qoday, inkastoo markii dambe la sii daayey. allabari axmed diiriye oo ka mid ahaa dadkii la soo deeyey ayaa ismaaciil xuseen farjar uga warramay waxa ay isku maandhaafeen shirkadda. walaal xadhiga iyaga de waxaan lagu soo qaaday annagu ma garanaynaba. haye iminka waa laydin soo daayey mise waa laydin xidhantiin weli? maya waa la soo daayey iminka. maxaa laydin xidhay markii hore? markii hore waxaa lanoo xidhay dee degaan baan ahay, buurta siimoodi degan baan ahay, magarasa. markaa dhulkii waxaa la yidhi qolo shiinaha ka shaqaysanaysa ka kaca. waan gartay. marka annaguna waa diidnoona kuwa kacayna. waxaa jirtay marka hore shaqaala buurta ka shaqayn jiray oo kumbaniga la shaqayn jiray baa jiray. kumbanigii markaa wuxuu yidhi maxaa yidhi qoladaas shiini waxay yidhahdeen annaga wax shaqaalo noo shaqayn karaa ma jirti, annagaa shaqaale iska wadano oo shiinaha wadano badan oo buurta ka shaqaysanay yidhahdeen. marka horena waxaa lagu heshiiyey in shaqaalaha deegaanka laga qaato. ha shaqaalaha deegaanka laga qaato oo marka waxaan ku heshiinay inay iskool dhisaan, marka dambe in ay dhaktar dhisaan, waxyaala caynkaasaan ku heshiinay. waan gartay. hadda maxaa ismaandhaafka keenay markii dambe? ismaandhaafka waxaa keenay markii dambe dee wax siimoodi joogo lama hadli karna ma yidhaha annagu. haye annagaa shaqaysanayna, wax siimoodi joogona lama hadli karno. marka maxaa ahayd waxa weeyaan annagaad ka shaqaysanay nagu yidhaha. waana amar xagga madaxweyne ku-xigeenka ka soo fulay buu ahaa. maxaa markii dambe keenay in laydin xidho idinka? dee markaa waan diidnay annagu, waxaan nidhi ma yeelayna cagafyada naga joojiya ku nidhi. haye sidaa markaa annaga ku yeelena dambe amar ba lasoo siiyey. booliiska iyo militarigaba waa lagu qabtay, markaa bishan laga qabtay. imise qof baa laydinka xidhay markaa? waxaa laga xidhay markii hore waxaan 40 baan ahayn, laakiin markii dambe waa lasii daayay 20 baan lagu soo qaaday. waan gartay. xaggaa laydin keenay? waxaa la keenay jeelka dhaxal la keenay, dawladda waa lasii gudbiyey, jeelka hoose loo sii gudbiyey. waan gartay. xaggee? dee kan hoose boorama loo sii gudbiyey, xabsiga weyne boorama loo sii gudbiyey. waan gartay. marka markii dambe sidee baa laydin soo daayey? dee waxaanu sii daayey maanta waxa Allah wuxuu